بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وحين بلابنا بإذن الله تبارك وتعالى قيبتي تضبعات عشر هذين امتحانها أها كساب سنة قبورها يسيارة دوضة يقسائدك قسائدكو عبادة محوية معاملة كلا قبورها إن لسيارته إيش محيته حقيقة شرع الإسلام كحقيقة قتال نوعي الله سيارنا يا قابك الله سيارنا يا نبيكم السيارين جري هدو سيارين جري محوينا أمري شريعة باب كل هذا هي باب كيدو سيء هي أرنت حسن كل حين كل قاعدة دقينيوي وأنا مسألة قورت الرجع قيبته أي مغلان يأرجع جحان وعرر عيان أما أي قورت الضعني يفلقادو يقيلو يبوق أي فرايان مسألة شرعية ويه ومدى مسلمين تانا واقع حيسا قولوا قار وماله قبورها إن لسيارته ومسألة كتال شريعة الإسلام كمركا قاب كيلو سيارنا هي قاب بيلي هاي نظام بيلي هاي نظام كدين لإلاليه سيدي لولي مادوي سو مجيدين ولا ليالو مركا الله إذن بركيه أرنتاس بينو كوغادا ديغينا 10 كيدي لحاد قيبتيدي تضباد واي هدا إن شاء الله وحنو كبلا بينا ساكي مهمة سيارة القبور ورت قبورها إن لسيارته مهمة iyo danta iyo ujeedada laga leeyahay maxay tahay ujeedada ka dambaysa cibaadada marka aan sameynayno ilaahay subhanahu wa ta'ala inaan ku raali gelino inaguna kayd iyo ka dhigano khayr iyo barako sidii ilaahay subhanahu adoon ilaahay ku ahaano ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu dhawaano waka muhiimada siyaaratul qubuur maxay tahay horta ma la hayo cilmahan ma loo hayo nacam markaan shishay ka soo bilowno waxaa muntashiraha faafsanaa aad u farabadnaa bi'thadii nabiga markii la soo saaray ka hor salawaatullaahi wasalaamu calayhi ducaa qeyrillah ilaahay qeyrkiisa la bariyi jiray sana ma la bariyi jiray waxba meelaha oo la 360 sana baa kacbada oo la meelo kale ku kala jirjireen kuwa waaweyn baa jiray kuwa yar yar baa jiray mawjada ducaa qeyrillah ujeedaduna waxay ahayd li jalbi nafqi baabkaas aad buu farabadnaa isagoo baabka shirkiga aad iyo aad wadanka u yaal oo deegaanadaas iyo dadka ku noolaa waqtiga noolaa isagoo qolo waliba ay meel ku mashquulsan tahay oo sanamarooda qolo waliba mashquul ku tahay ayaa nabiga la soo saaray ujeedada kala haayana waxay ahayd nafac inay helaan dhibtana ka badbaadaan ujeedaduna ficlan waxay ahayd ilaahay subhanahu wa ta'ala in loo sii maro ilaahay dadku way yaqiineen bani aadamkuna ilaahay waa yaqaan laakiin cibaadada marka la gaaro baa la kala haraayo in ilaahay toos loo caabudo baan dadka badan ogolayn soo ma jeedid saasay waxay ku noqdeen mushrikiin kuwa kan saasay mushrikiin ku noqdeen arinta haday jidhay nabigu wuxuu ku dadaalay salawaatullaahi wasalaamu calayhi saddu kullu baabin yumkinu an yufdiya an-naasu ila al-ishraak baab kasta oo dadka shirki gaarsiinaya nabigu inuu banido oo xiro fi cibaadatillahi wahda ilaahay cibaadadiisa shirki ka gelinaya baabka nabigu waa xiray sidaa daraadeed nabigu wuxuu reebay salawaatullaahi wasalaamu calayhi ziyaaratul qubuur mawjeeda arintaasna wuxuu u reebay sayan u ahaan dariico iyo dhaba soo dhoweysa baryadooda muxuu ahaytoy qabuuraha u dhoweysa oo baryadooda cilaaqa la leh oo baabka qabuuraha iyo wixii ku tacalluqada nabigu waa xiray bil kulliyanba ilaa marka intee xirayd xataa khallasat caqaa'idu naas ilaa dadka caqiidadoodii ay toostay oo diintii ay fahmeen oo aqoon ay yeesheen oo fiqhi badani degay oo islaamkii ku duxay ilaa muddada laga gaaray nabigu salawaatullaahi wasalaamu calayhi shirkigeena la baabi'iyey oo muddo dheer ay ka soo wareegtay shirkigeena ay ka takhalluseen wixii meelaha oolaana la wada burburiyey deegaanadiisa iyo godkii walba oo oolaana loogu tagay oo la burburiyey ilaahay iyo dadkii la isbaray mawjeeda markaa kadib baa nabigu salawaatullaahi wasalaamu calayhi wuxuu fasaxay siyaaratul qubuur mawjeeda ibnu mas'uud xadiiska uu warinayo radiyallahu ta'ala anhu ibnu maajah ku sugan rasuulka ilaahay wuxuu yiri markii hore kuntu nahaytukum an ziyaaratul qubuur qabuuraha siyaaradooda waa idinka nahiyay waana idinka reebay waana idin diiri ilada iyo ujeedaduna way qeexanadu nabigu wuu baray salawaatullaahi wasalaamu calayhi in shirka ka dhow yahay in shirka uu ilaalinayo in waxyaalaha meesha shirkiga wixii soo dhaweeyay iyo wixii ag mara oo dhan waa laga xiraa ummadda ama hadda fazuruha hadda siyaarta هذا
xadiiska qaybta hore waxaa nasakday qaybtan fazuuruuha qaybta hore waa mansuukh qaybtan dambana waa naasikh fazuuruuha inta kasii dambaysana waa cillo bixin iyo ujeeddada iyo hadafka iyo xigmadda loo siyaaranayo bay ina baraysaayo waxay tahay fa innahaa qabuuraha in la siyaartaa tuzhidu fi dunyaa adduunka ayay dadka ka zaahidisaa adduunka in laga zaahido oo aan laysku mashquulin oo lagu ilkabeelin oo cimrigu kaaga dhammaan oo kabuhu kaaga dhammaan oo layska ururiyo oo lagu noolaado oo si sharaf leh oo cibaadadaada loogu guto oo kadibna laga hayaamo saas weeye muhiimaddaas marka adduunka inay kaa zaahidsiiso oo aad ogaatay saaxiibkaa meeshaa ku aastay in lagugu aasaayo saas weeye sidoo kale wa tudakiru alaakhira aakhirana waa ku xasuusisaa adduunkana waa kaa yaraysaa mashquulkiisa iyo shidariisa aakhirana waa ku xasuusisaa waa laba qodob oo aad iyo aad u muhiima marka siyaaratulqubuur muhiimadda loo siyaartaa horta waa taas ayib waxaynu gelaynaa marka anwaacu ziyaara siyaaradu imise nooc bay u kala baxdaa siyaaradu waxay u kala baxdaa shirkiya iyo sharciya ogaada masaladaas si fiican aan isula qeexno midna waa shirki oo muxuu ahaytay waxaad tidhaahdaa waa sharci midna waa shirki tan sharciga aan hormarino siyaaratulqubuur oo sharci ah horta safar loo geli maayo oo safar in loo galo horaynu usoo sheegnayoo in loo galo safar oo safar looga qastiyo meel dheer laga soo kaco meel dheer loo soo aado siyaaratulqubuur baan soo siyaaranayaa masale shareecada islaamka boos ku leh maaha laakiin raggii rag ahaa yaa ka dhicinaya rag baa ku nool rag baa ku qaraabta rag baa ku shaqaysta rag baa arrintaas maaragtay biilka iyo kala soo baxa nolosha marka arrimahaasu waa arrimo adag ujeeddada marka sharciga siyaarada ah loo tegaayo waxay tahay assalaamu calayhim in lasoo salaamo oo loo ducaeyo assalaamu calaykum ahla diyaari ma ujeedaa min almu'miniina in la salaamo adkaarta ku soo aroodhay oo macruufka ah oo kutubta ku taal baa la akhriyaya dayib sidoo kale waducaa'i lahum in loo ducaeyo walaal in loo ducaeyo walaalkaa weeye waa kaa hormaray adigaa meesha dhigay mase dad kalaa dhigay mase waa tiqiin adna halkaasaa ku damaynaysaa isaguna waa kaasii hormaray xoogaa wakaa sidoo kale walitadakuru almowti walbilaa in la xasuusto mowdka iyo in la dhammaanayo ummaddii ilaahay oo ilaahay abuuray oo reer fulaan leh oo reer qoom saalix leh oo reer maaragtay hamuud leh oo reer caad leh oo qoomu nuux leh oo muxuu ahaytoy qoomu ibraahiim leh oo qoomu saalix leh oo qoomu shucayb leh oo qoomu sulaymaan leh ummadihii ilaahay abuuray oo adduunkan joogi jiray wixii wax kama harin kuwii innagu inu soo gaarno faraha badnaa baa tegey marka waxaasaad xasuusanaysaa way istaagaysaa waad u ducaynaysaa waa salaamaysaa halkaas aadna ku xasuusanaysaa qabuuraha kugu dhow oo magaalada cirifkeeda ah oo dadka aad ku soo aasatid kuwaa tag kuwa fogfog oo meelahaa jira maxaad ka doonanaysaa maxaa kaa yaal ayib taas waa tan sharciga ah oo lagaa doonaayo safarna ma soo gelin subaxdii goortaa salaada subax tukatay baa soo dhaqaaqday waad u ducaysay waadna ka noqotay waana salaantay waana ku cibro qaadatay adigoo maskaxdaadu aad iyo aad u wanaagsan tahay qaybta shirkiga ahi waxaa weeye kow saddex weji bay shirki ku noqotaa qofka koowaad wuxuu yahay qofka kan waa soo kacay qabuuruhu soo aaday safar buu u soo galay qabriguu is ag taagay xaajada iyo danta uu leeyahayna wuu weydiistay halkaasaan ka soo kacay awoowow ama shiikhow ama fulaanow ama magac kalow waxaad rabtid dheh xaajadaadii waxaad weydiisatay qabriga kan waana baran tahayo waa tan ugu badan oo ugu fara badan in xaajada qabriga la weydiisto oo danta iyo ujeeddada iyo baahida loo sheegto noocaasu marka waa min jinsi cubaadul asnaam dadka sanamada caabudaa intay soo kacaan oo ag yimaadaan bay baahidooda weydiisan jireen oo odhan jireen ilaahay noo bari adigu wax ma tadhide ilaahay noo bari saasay odhan jireen kanna waa sidii oo kale ilaahay baa loo baryaaya oo lagu baryaaya qaybta labaadoo iyaduna noocaasi waxay tahay man yas'alullaaha tacaala bilmeyit ilaahay buu bariyey qabriga kii hore baryey soo maahan kanuu ilaahay buu baryey laakiin ilaahay toosuma baryen meydkaanu iyo qabrigaanu ku baryey ilaahu waxaan kugu baryaayaa meydkaa sharafta leh awoowahay iyo shiikaygii iyo hebel
iyo saas ilaahay buu baryey ilaahay baryada toos maahee wuxuu yidhi kaa wejigiisa iyo karaamadiisa wuxugu sii waa qaybta labaad qaybta saddexaad waxay tahay qofa kanu wuxuu u maleeyey anna ducaa'a cinda alqabri mustajaab ducada qabriga agtiisa ah inay mustajaab tahay tanaa ugu badan baan isleeyahay waa soo kacay qabriga wax ma weydiisan ilaahayna toos maaragtay intuu u baryo oo intuu ka yimaado qabriga wax kuma weydiisan qabrigana wax ma weydiisan muxuu yidhi wuu is ag taagay qabriguu is ag taagay cinda alqabri buu yimi wuxuu u maleeyey marka ducada halkaa lagala soo tago qabriga agtiisa lala yimaada inay mustajaab tahay oo ka degdeg badan tahay oo ka aqbal badan tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ajiibo oo tan bannaanadaas lagu ducaysto inay ka aqbalayo ijaabo badan tahay oo halkan ilaahay wax ku ajiibo saasuu u maleeyey oo halkan ducada lagu aqbalo arrintaasaa ugu badan iyo ictiqaadka noocaasa soo uma jeedid waxaad ku garanaysaa qasiidooyinkan hadda qasiidadan soo socota waxaa tiriyey qaasim albaraawi nin culimaaha wadaada oo soomaaliyeed buu ahaa deegaanadaas baraawe iyo aagga iyo banaadir iyo meelahaas u badnaa sheekadiisa qarnigiina dhaafay ayuu ahaa soo uma jeedid marka qasiidadan soomaalidu marka aad bay u yaqaaniin aad bayna u akhriyaan aad bayna ugu badan tahay dhammaan deegaanada soomaalida in laga akhriyaan rajaynayaa kolley anigu intaan arkay waa laga akhriyaayey شي لله يا جيلاني الشيخ الأكابر المداد يا كيلاني يا عبد القادر وزن كاسي اللي هذا إيضا أنا لقو قاضا دادك عامضا هي مركا أما دادك كل شي بنايا انتاسي قاضا شي لله ما عن هيد مركا إيضا الله معنينا ولي لما أرق لكن إيضا الله قاضي ولقو مرقامي ومدح اللي سلدعي ولقو ودا ماركت لقو ودا جدبودي وينو أرقن لكن إيضا الله معنينا وانا ما أرق موجودة waxaan leeyahay marka intaanan macnaha gelin waa caynu shirk waa ilaahay qeyrkiisa la baryaayo nin marka culimo ama dad culimo ah ilaahay ku baryaaya waa qaybta u dameysay oo ilaahay buu wuxuu ku baryaaya qabriga kanoo ilaahow qabuuraha iyo awliyadaas iyo jiilaani wax nagu si qaasim albaraawi ama sheekhan hadda qasiidadan iskale u fiirso horta macnaha aan isla fahamno shay lillahi ya jiilaani shay lillahi waa shay ilaahay magaciisa inuu ugu yeero oo cabdulqaadir yiraahdo oo magaca ku naadiyo uu leeyahay waa ka weynaynaya oo wax muqaddasa oo afka aan la soo marin karin magaciisa ayuu ka dhigaya yaa jiilaani shayga ilaahay war jiilaaniyo sheekh al-akaabir inta waaweyn ama inta akaabirta sheekhoodiyo almadad waa hal ku dhig barya madad baan ka rabaa madad waxa la yiraahdaa ciidamadii hore markii ciidamo lagu siyaadinayo madad يعني جيشش كعيدا ماذا إن عيدا ملقوسي هذا يلا قد بكيانو المدد وحين لو قرشي ونلو قندي وأنكاقبني وحكبضا بانو ربنا كيلاني يا كيلاني كيلان ومنطقة لو نسبة جيلان يو كيلاني يو ميلهاس ديغان ندي سيو يو ابتريسكي سيو ميلهاس جليسة يا عبد القادر شيخ أكابرتو واحتر يو وناك مكارمنا انت ويسنكو مركو كدغاي halku dhiga hore oo maaragtay halqabadka hore oo la isla qaado madadan wa qawsan wa nasran minka ya shaykhana wa ya abd alqadir anta sultanul awliya'i jami'an nastajiru bikum faqum thumma badir anta qutbul aqdab qum wa tadharikna wa adrik muridika abd alqadir kuwa kala kasi damaya wuxuu leeyahay marka madadan waxtar iyo siyaado iyo gacan iyo dheef iyo deeq iyo wanaag iyo khayr iska soo daba dhaca iyo waqowsan gargaar degdega iyo wanasran hiil minka adaale intaasoo dhan adaale yaale intaa yaale ilaah baa subhanahu wa ta'ala hadda ilaah ma siina adaale buu yiri yaa shaykhana wa ya abdulqaadir adaale mawjeeda waan waa hore inta qaasim albaraawi hadeero ahaa sheekh jiilaanina intaasoo qarni ka hor buu ahaa xagee isku arkeen xagee wax ku siin karaa xagee ciidamada marinaya anta suldaanul awliyaa jamiican awliyada ilaahay say u dhan tahay dhammaan anbiyo iyo awliyo iyo malaa'ig iyo inta ilaahay xiriir lalo ilaahay u dhow suldaankooda adiga weeye waxad gudub nastajiirun waxaanu korid iyo istijaaro iyo badbaadin ka dalbaynaa bikum idinka ay adiga iyo kuwa kaleba
فقم استاج ثم بادر دقدق وليبا دقدق ستاج أمر بو بحنايا موجودة أنت قطب الأقداب أدقو وحاتهاي تيرارك أقداب تقطب قودي تيرارك تير كودي باتهاي قم استاج وتذارك نسو قارو نقبو ونسو هليل وتذاركنا وأدريك هدنا مسنا وحاسي قارو قبطها oo ilaalisa oo cinaayo kala siisa muriidka Abdul Qaadir qofka muriidkaaga oo adiga kugu xiran oo ka dameeya oo aad sheekha u tahay oo adiga ku ogol warda sheekhow war qofkaas sida u dhaan soo ma jeedid man araada falaaha awlan wa akhran qofkii doonaya wanaag adduun iyo aakhiro qofkii doonaya inaguna la talinaya qofkii wanaag doonaya dadow فليداوم هدائما بحضرة عبد القادر حضرتي سهدائما موجودة وح نوعاس وعين الشرك وح لو هضلنا ماها موجودة قفك خير دونايا إلهي هكو حرمه شريعة دي سنهر على صوماهين يسقوا قفك خير دونايا فليداوم بحضرة عبد القادر حضرة وحضرتي دانسكي وح العيارة دانس بان أورانينا دانس يعني ووحا اسكا هيلada oo tumashada oo dubaantumida oo maqnaadiista oo maskaxda dadka wuxuu dhinta oo caamadu la wada wareedho oo ku wada waalato oo muxuu hantida ku hordho oo hantida dhan wada wareeriso oo isu cayreyso saas weey dayib amaantii buu sii wadaa xadgudubka ahaydo wuxuu yiri sayyidi anta sanadi anta haami fahmini min makhawifi Abdul Qaadir sayyidi sayidkaygo anta sanadi adigu waxa tahay kii aan ku tiirsanaa anta haami kii ilaalinayay محامي إيه دوري إيه أها سهدمها إيو حريرها إيو سكويرك إيو دين عيدا إيجا تشوغي فحميني إيه إلالي من مخاوفي وحال الله لو وحان كبقى إيو إيجا إلالي يا عبد القادر إيجا إلالي وحال لو وحان كبقى إيو بلدي أفلقات هذا إنت عليك إنت إلهي إن اللي أقبال الدعوعي ودبات اللوغيستي والشرك اللوغيستي ووحال الله هذلي أفقف ضمير كيس إيمان كجره هذا الصومري كرمية هي هذا الكاس إلهي ميا الله بريا مسنين كان الله بريا مددا منك يا رفيع المزايا مددا منك قوسنا عبد القادر وفيرسو مددا منك سيادو وسيادو يكورو هادو مركو ركود واقعي يا رفيع المزايا كي أمانتي سؤال كورنقطيو مدد إيو وحتر إيو ديف إيو وحقبض إيو مقعن انت بعض يسكالي مددا منك وناك iyo dheef adeys kale qowsana gargaaraha iyago Abdul Qaadir rabbi anzil hidayatan fi fuadi bil wali wa isqud bil banadir ذا عبيدكم من براوة قاسم يرتجي جزيل الجواهر ساسا لو جلبيبن جري ولو قاري جري لكن لينو ما معنين جرين wax badan oo baran baan qaadnay oo akhrinay oo ku marqaanay oo ku shaahnay oo ku bunaynay oo ku walimeynay oo maaragtay si fiican kor ugu qaadnay oo dadkii ma ku khalkhalinay haddana macnahooda mamnuuc weligeed lama maqli jirin waa tanaahaye rabbi ya rabbigayow anzil ilaahu daji hidayatan ilaahu hidayasi fi fuadi maskaxdeeda iyo qalbigayga bil wali bisabab al wali uwaysaha sababtiisa ilaahu qalbigayga iyo fadligiisa qalbigayga hidayo ilaahu daji hidayada ilaahu adigu nasi maxaa ka xiga uwaysku qudbil banaadir deegaanka banaadir tiirkiisa aha walaalayaal hadalkaasu soo meel ka dhac maaha inagoo aan garnaqsanayna hadii yani garta aan naqsano walaalayaal markaan garnaqsano hadalkaasu hadal qof muslima oo saaxiib tawxiid oo ahlu qibla oo muslima oo walaala oo iimaan ku jiro hadalkaas ma qabta qof xawilan oo xaq ilaahay bani aadan siiyay waa qabta laakiin kan kale ma qabto ذا عبيد وحسيجا يا مركز قصيدة ده نك إسكالها وهو جبي خيرهنا خير شرهنا شر ذا عبيد ماذا كانوا عبيدكم من براوة وعبيد كيني أما الدنيا يروجين غير براوة قاسمها يرتجي وحرجينا يا جزيل الجواهر جوهر بدن يا خير بدن يحبون كسوجا يا يودي وحرجينا يا waxaan moodaa inuu yar ku qaraabanayo leeyahay jawharta iyo khayrka iyo wanaaga iyo siyaarada soo guro soo bixiya mawjeeda hadalka marka waxa arkaysaa ilaahay subhanahu wa ta'ala waxyaalihi uu reebay oo qeyrka in la bariyo ahayd ayaa meesha laga saaraya oo ilaahay qeyrka in la bariyo ayaa muxuu ahaytoy baa loo bareeraya
qasiidadana saas ku fadhidaa in la akhriyo waa badan tahay laakiin in la macnayaana ma badna casharkan insha allahu tacaala toddobaadna halkaa ayaynu kusoo gebagabaynaynaa casharadeena taxanaha ahaa wasala allahu wasallama wabaaraka calaa sayidina muxamedin waaalihi wasaxbihi wasalam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakatu